بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودرسي لحاج تفسير في جزء عامة أنا مطلق عليه رمضان لو سورة أيام قادم دونا إن شاء الله تعالى سورة الانشقاق هي سورة البروج. سورة الانشقاق waxay ka mid tahay suuradihii aan soo sheegnay xadiidkii hore aynu ku soo sheegnay suuratu al-buruj markaan soo maraynay ida shamsu kuwirat ayaan ku soo sheegnay in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri ruuxii doonaya inuu qiyaamadii indhihiisa ku arko suuradahan akhriyo marka إذا الشمس كورت، إذا السماء فطرت، إذا السماء انشقت. سورة عزي مركم التهي قيامة دي مشاهد دي قار كم إذا الصفين أيام التلمامي. مركم حيكون بالله بنيسا اسبدل لدى كل عيا كون كقيبة كم إذا هي السيدة وحنا قندونا مركي قيامة التماد سيدة سيكون بالله بنيسا dadku siday kala noqon doonaan iyo qaabka loola mucaamaloon doono say u kala duwan tahay ayay ka hadli doontaa iyo meeshay ku kala dambeyn doonaan. waxay akhiiran lagaga hadli doonaa suuraddu ka hadlaysaa oo ilaahay ku dhaaran doona makhluuqaadkiisa qaar ka mid ah ibni aadamka iyo maraaxiisha kala gedisan uu mari doono ilaa ama naar uu ku dhammaado oo isbeddelkaas u socdo xaaladba xaalad say ugu dhiibayso uu godkaa ku dambeeyo ama dhanka kale siday xaaladba xaal ugu dhiibayso uu jannada ku dambeeyo. akhiiranna soo celintiiyo nolosha dambe in la taqriiriyo iyo dadka mu'miniinta waxay ilaahay agtiisa ku leeyihiin ayay suuradda lagu gabagabaynaya. wuxuu alla yidhi tabaaraka wa tacaala marka bismi illaahi araxmaani araxiim إذا قرتي السماء سمدي انشقت أي دلدلاعضو وأي كلا دنبلنتو وأذنت أي مقشو لربها ربك أي مقشو أمر كي سيش وحقت لغو حقسيو إن إلهي أمر كي سيشي ولغو تشتسيي ولغو قرسيي ولغو حقسيي. وإذا قرتي الأرض دولكي مدة لتاغو يعني دولكي لفيديو أو لتاغو وفيدين تاغيدا أو ميل هو صلاحين ميل كرونارهين وسيمن وألقت أي صوتور توسور ريدو دولكي ما فيها وحي قده هذا كتشري وتخلت أي اسماريسو وحي قده هذا كتشري أي اسكماريسو اسكفاروقسو وأذنت أي مقشو دولكينا لربها ربكيد أي مقشو وركي سيشو يا أمركيس وحقت لغو تشيتسيو لغو قرسيو أرنكا إساقا إنتا سيمركي لعدها لاقى الإنسان كدحه هو إنسان كي مركا وحو لكل مي وحو صوشا قيستي اسبدل هذا دعاية كم انتهي سمدو أو دلدل عدا وانصومرني إني سمدو تشلعي دونتو dildilacna ku imaan doono malaa'igtuna ka soo degi doonto ka imaan doonto sidaas way macnaha marka samadii baa dildilacday rabbigeed bay maqashay oo dhageysatay oo Allah amarkiisa qaadatay way macnaha garbayna u leedahay in Ilaahay amarkiisa inay qaadato waa arin lagu garsiiyay arin lagu la yaabo ma aha maxaa yeelay Ilaahay tabaaraka wa tacaala wal qawiyul jabbar wax amarkiisa la diidi karo ma aha wax amarkiisa ay hor istaagi kartana ma aha inay amarkiisa qaadatay oo ay maqashay waa lagu garsiiyay waa lagu jidsiiyay. dhulkiina sidoo kaleeto markii la fidiyo oo la simo oo yani wax weeye muxuu ahaa
laaqa alinsaanu kadxahu ibni aadamkii wixii uu adduunka ku soo rafaaday iyo wuxuu ka soo shaqeeyey markaa wuu hayaa wey ayib inay jawaabtu sidaa tahayna waxaa laga qaadanayaa aayadahan ka dambeeya yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan baa macnaha tilmaamaya intaa kadib baa bini aadamkii lala hadlo alla wuxuu uhi yaa ayuha alinsaanu insaanow innaka adigu kaadixun ku kadeedan baa tahay ku shaqo adag ku jiraa tahay kadxiga waxaa la yidhahdaa waa sacyiga iyo camalka adag waa shaqada adag innaka adigu kaadixun baa tahay mid kadeedanoo shaqo adag haya ilaa rabbika rabbigaa intaad kala kulmayso inta aad ka dhimanayso ood aakhare lagaa soo saarayo ood rabbigaa kala kulmayso kadxigaa iyo rafaadkaa iyo shaqadaa adag baad ku jiraysaa kadxan kaadixun kadxan yacni kadeednaan ama shaqo fa mulaaqiihi mid la kulmayaa tahay marka yacni mid shaqo adag iyo rafaad ku jiraa tahay mid kadeedan baa tahay mid adduunka intuu joogaayey aan nasnayn baa tahay ilaa rabbiga aad kala kulanto shaqadaa adag iyo kadxigaasaad ku jiraysaa markaasaad la kulmaysaa iyo shaqaduu soo shaqaystay buu la kulmayaa abaalkeedii waay ama wuxuu la kulmayaa rabbigii buu la kulmayaa oo damiirka fa mulaaqiihi in rabbiga loo celiyo iyo in kadxiga loo celiyo labaduna waa mutalaazimaan siduu ibnu sheegayo ibnu kathiir calayhi raxmatullah oo hadduu la yidhaahdo rabbigii buu la kulmayna dee wuxuu la kulmay inuu abaal mariyo waaye haddii la yidhaahdo camalkiisii buu la kulmayna waa un abaalkii waaye waa laba yani wax tafsiiroo mutalaazima waay marka insaanow adduunkan intaad joogtaay dhib iyo kadeed iyo qaxar baad ku jiri waay shaqo adag waay adduunkan wax cid ku nasani ma jirto ilaahayga abuurtay tabaaraka wa tacaala uguma talagelin inay noqoto daar lagu nasto waa daar ciddii joogtaba ay diyaar u tahay shaqo adag iyo rafaad cawaaridaas adduunka maraysa iyo ruuxii inuu shaqo ku jira camal buu ku jira ayib fa amaa man ruuxii marka waad la kulantay waa tagtay adduunkii iyo dhibkiisii iyo rafaadkiisi waa dhaaftay rafaadkaasi adduunka iyo kadeedkaa lagu jiray shaqada adag markii la dhinto ayuu ruuxna ka nasanayaa ruuxna markuu dhinto ayaa shaqo adag u bilaabanaysaa saas daraaddeed baa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam dadku markay dhintaan waa mustariix iyo mustaraaxun minhu midna markuu dhinto dhimashaduuba ku raaxaystaa oo adduunka dhibkii ku hayay iyo rafaadkii adduunyadu kaga nastaa waa muuminka ruuxa wanaagsan waay midna waa laga nastaa oo markaasuu isaga rafaad baa u bilaabanayaba waa markuu qabriga gala geeridaba intaan naftu ka dhicinba markii lagu soo xaadiro ilaa qabriga markaasuba kadeed iyo dhib cusub bilaabaya taasaa laga warramaya marka fa amaa man ruuxii uutii la siiyey kitaabahu kitaabkiisa la siiyey waa diiwaankii camalkiisa ku qornaa biyamiinihi midigtiisa laga siiyey aakhare markii laysa soo saaro waxaa laysu qaybinayaa dawaawiintii riboodyadii dadka laga soo diyaariyey ay ku qornaayeenoo malaa'igtu soo diyaarisay ayaa laysu qaybinayaa ayib fa amaa man ruuxii guutiya la siiyey kitaabahu diiwaankii camalkiisu ku qornaa biyamiinihi midigta looga dhiibo midigta laga siiyo fa sawfa yuxaasabu waa la xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud wayanqalibu wuu gadoomi oo wuu noqon ilaa ahlihi ehelkiisa xaggiisuuna u gadoomi xisaabtaa fudud marka la xisaabiyo ehelkiisii iyo reerkiisii jannada ayuu xaggooda u gadoomayaa masruuran xaaluu yahay mid la farax geliyey calaamadu waxay u tahay marka qiyaamada la yimaado maxsharka la yimaado ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo waa ruux liibaanay waaye marka ruuxaasi xisaabtana lagu adkayn maayo kadibna markii xisaabtaa fudud la mariyo ehelkiisii iyo gurigiisii iyo jannadii iyo meeshii loo diyaariyey buu marka aadaya isagoo aada u faraxsan oo wuxuu ku faraxsan yahay baqdin baa jirtay baqdintii buu ka badbaaday waa midda labaade wax ilaahay wuxuu siiyey tabaaraka wa tacaala lagu farxana waa la siiyey marka isagoo faraxsan buu tegay fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran halkaa marka waxaa ka muuqata addoommada qaarna xisaab adag baa la marin doonaa qaarna xisaab fudud baa la marin doonaa waxaa nebiga sal alla alay wasalam sidaa u fasiray xadiidka caaisha radia allahu tacaala canhuma bukhaari soo saaray nebigaa sal alla alay wasalam wuxuu yidhi
ma jiro ruux la xisaabin ilaa waa halaagsamay marba haddii lagula xisaabtamo xisaab lagu qaato halaagsantay buu nabigu yidhi sal alla alay wasalam markaasaa waxay tihi rasuulka ilaahayow jacalanii allaahu fidaaka furashadaada ilaahay ha iga dhigee ilaahay soo ka qur-aanka ku yidhi ma aha فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أدونا waxaa tiri ruuxii la xisaabiyaba waa halaagsamay quraankuna wuxuu leeyahay dad waxa jira xisaab fudud la xisaabin doono see u jirtaa see way markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam dalika al-ardu yu'radun kaasi xisaab meehe waa bandhig adoonkii iyo amalkiisii loo soo bandhigay kadibna sidaasi lagu saamaxay oo kadibna jannada aaday way laakiin wuxuu yiri man nuqisha al-hisaab halak man nuqisha al-hisaab halak ruuxiisa xisaabta lagu adkeeyo oo si dhab ah loola xisaabtamo inuu halaagsameeyo shaki male laana wax laga bixi kara ma aha hadii si dhab ah lagu la faguro xisaabtaadii oo in yar lagu dul istaago oo xasanaadkaagi wax wanaagaagi iyo xumaantaadii miisaanka la isu saaro oo shay lagu weydiiyo loo dul istaago ma badbaadi kartid taaway marka middu nabiga sallallahu alayhi wasallam man nuqisha al-hisab udhib laakiin tani way ka duwan tahay tan ardi baa la yiraahdaa adoonku ilaahi tabaaraka wa taala adoonkiisa markuu doonaynin inuu muxuu ahay uu fadeexeeyo ama ku adkeeyo acmaashiisii baa loo soo bandhigayaa isagii baa la soo bandhigay acmaashiisa la soo bandhigay waxa la leeyahay tan ma sameysay tanna ma sameysay tanna ma sameysay tanna ma sameysay acmaashiisii marka la soo bandhigo waxa la leeyahay ka aska jannada marka taa xisaabtan mehe waa bandhig waana xisaabta yasiirka miduu muxuu ahaayay aayadu ka cabirta way fasawfa yuhasabu wala xisaabin doona xisaaban yasiiran oo in laba kaf miisaanka inta xasanaadkiisa iyo aadka la isu miisaameehe si fudud baa acmaashiisa inta loo dulmaro oo loo soo bandhigaa kadibna xagee buu aadaya marka wayan qalbi marka uu gadoomaya ila ahlihi ehelkiisa xaqiisu ehelkiisa jannada waa xurul ciinti iyo khayrkii wixii loo diyaariyay masruuran xaalu yahay mid la farax gali soo aad u faraxsan marka tagaya oo uu aadayga hoygiisii iyo ehelkiisii marka aadaya way macna kaasi waa kii xisaabta fudud la saabiyay oo kitaabkiisana midigta laga siiyay wa amma man ruuxi uutiya la siiyay kitaabahu kitaabkiisa wa diiwaankii amalkiisa ku qornaay waraa dhahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo fasawfa yad'u wuxuu u yeeran doonaa thuburan halaag iyo khasaare hog iyo ba wayasla wuxuu gali doonaa saciira naar huraysa maxay yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fi ahlihi ehelkiisa dhaxdiisa adduunka markuu dadkiisa dhex joogay masruuran mid la farax galiyay buu ahaan jiray adduunku iska farfaraxsanaa oo muxuu ahaayay cabsi aakhiro iyo xisaab muusan qabin innahu isagu dhanna wuxuu maleeyay adduunka markuu joogay wuxuu maleyn jiray allan yaxura inuusan soo noqonaynin balaa arinku saama ah suu mooday ma aha ee inna rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaa bihi isaga basiiran mid arkayuu ahaa waa lala socday waana la arkay waa laga warhayay seen loo soo celinaynin marka ma bilaash baa in laga warhayo oo lagu arkayo oo lagu daba socdo oo ma bilaash baa seen loo soo celinaynin waa tayib kan waa qaybtii labaad waa dadkii ahlu naarka ahaa waa dadkii gaaladii munaafiqiintii wixii la halmaalay way cusaadii way ayaga wax weeye marka kitaabkooda la siinayo bidixdana waa laga siin bishimaalihi waa kameelka laga cabiray bidixdana waa looga dhiibi dhabarka gadaashiisana waa laga siinaa bimaana gacanta inta gadaal laga jabiyo oo dhabarka la mariyo ayaa halka diiwaankiisa looga dhiibaya oo akhrisa la leeyahay marka dhabarkiina way tahay bidixdana waa laga siinay tayib waa calaamad in uu khasaaray markaas uu calaalaya oo hoogayo ba ay leeyahay oo uu u yeedhanaya muxuu halaag iyo khasaaro u yeedhanaya mana helayo hadduu xataa 100 goor bariyo toma halay halaaga yiraahdo hoogayo ba adho ma helahay tiiba ma la helaynin macna tayib naar huraysu galaya maxaa yeelay adduunka markuu joogay cabsi muusan qabin murug aakhira muusan qabin diyaar garow ma lahayn nin iska faraxsan oo adduunkiisa ku xasiloon buu ahaa sidaas way macna baynama dadka muuminiintii adduunka markay joogan waa baqayaan ehelkooda markay dhex joogan yani ehelka waxa weeye markaad qaraabadaadii iyo dadkaagii iyo ilmaadeerada iyo tolka iyo markaad dhex joogto
waa meesha ruuxu aaminka ku noqdo way halka markay joogaan muuminiintu ilaahay bay ka baqaan ruuxa kaleetana yani meeshaas wax way muxuu ahay faraxan loo baahnayn iyo kibir iyo yani wax buu galaya macna waa ka ilaahay muuminiinta ku sheegay inna kunna fi ahlina mushfiqiin markaan dadkanaga dhex joogna waanu baqi jirnay kuwanina markay dadkooda dhex joogaan ayay farax kibir bay faraxsanaan jireen saas macna فسوف محوها وأما من روحي أوتي لسي كتابه وراء ظهري دبركيس قداشيس لغسي فسوف يحاسب فسوف يدعو حويا رندونا ثبورا هلاك ويصلى وحو نقلي دونا سعيرا نار هريس إنه إساق كان وحوها أدونك مركو تشوغي في أهله كيس دحديس وحوها قرابديس كيس دحدو مركو تشوغ مسرورا كل فرح قليبها فرح قليل اسك فرح صنبوايو آخرية مرugteedii iyo walbahaarkeeda ayna hayninba innahu isagu dhanna wuxuu maleeyay allan yaxura inuusan soo noqonaynin yani waxa way waa dhimanaynaa qabrigan ku dhamaanaynaa xisaab ma jirto isa soo celin ma jirto saasuu rumaysnaa maba in la iska daba imaan doono warkiisa uma jirin yani jadwalka uma jir bala iska dhaafe inaan la soo celinin arrinku ma ahee إن ربه ربيجي وحوها إن ربه ربيجي كان وحابيسك بصيرا من أركيا محل جوده أركيا بمعنى وحويان إن لسوء لنا يوحاك تصيا الله تبارك وتعالى أرجع وأركيا ولا صعشة ولا صعدة علمك أولي أعماش السمين يو يعني وحوي إلى علينا يو ملائكة الله دري وحن لقى قرية كل ما حكوا تصيسا إن لسوء لين دونه أو يعني وحوي أبالك سلام مرين دوره ويمعنى بلاش ما مرك إله إنه أركيه سو علم بكتوسي معنا فلا أقسم وأن دارنا هلك هوري فسوف يحاسب حسابا يسيرا وحاسقا وإمام أحمد وصوصاري النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دحدة إنه كدو حيسن شري اللهم حاسبني حسابا يسيرا وحديث سقام إله حسابي حساب فضود النبي كدو حيسن شري سيدا حديث عائشة كسبا نعم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم وأن دارن بو الله يري بالشفق عوويرتان كو دارنيا والليل هبينكي بان كو دارن إيا وما وسق وحو كلميي oo hoostiisa galay wal qamari dayxi baan ku dhaaran ida goorti ittasaqa uu dhameystirmo ururo intaasan ku dhaartay buu alla yiri la tarkabunna bini aadamkiyo waad fuulaysaan dabaqan xaal can dabaqin oo xaal ka dambeeya xaalada kala dambeeyaad mari doontaan oo fuuli doontaan waa طيب فما لهم maxaa u sugnaaday marka oo la yu'minuuna xaal ayna rumaynaynin fama lahum maxaa u sugnaaday la yu'minuuna xaal ayna rumaynaynin arrimuhu markay saa u cadaadeen aayaadku saa u cadiin maxay u rumayn laayihiin وإذا قرتي قرئ الأقري عليهم كركوذا القرآن كينا لا يسجدون محي أسجود لأيهن محي أتكن لأيهنو إلهي أعابد لأيهن بل إسكبر دافه الذين كوا كفروا كفريي يكذبون ويبينين يعني وحال لو شيء يردن ما أقوله والله ألنا أعلم وحو أكسون يهي أما ميد علمي بضوي أما أعلم وحو يهي بما شيء يوعون أي قلبك كو قرصنا وحي قلبك كو ويلين يعني وقلوبتooda ku qarsoon oo ku jirana ilaahay waa ogsoonyahay fabashirhum ugu bishaare bi cadaab ugu bishaare aliimin oo xanuujiya illa laakiinse istithna munqati'a wa illa laakiinse alladina kuwa aamanu rumay oo aamilu samee as-salihat amaliyalka wan wanaagsan lahum waxa usugnaaday ajr ba usugnaaday ghayru mamnuunin oo aan la goynayn kullu goynaya aan ahayn yani wax way mana nusqaamayo mana go'ay طيب الله وحكو دارتي تبارك وتعالى شفقة وحل يدهدا عند أكثر العلماء سلفا وخلفا علماء بدن كود سيقبان وعوويرته يعني وحوي قرحدو مركي دعدو جدود كم مقدج هذا يقرحدو كدعدي جدود كاسا ليدهدا يعني جدود كاسا وحل شفق أكثر السلف المفسرين تو سيدا سيقبان حديث نبينا وهو كسارور الشفق إنه جدود كاسية عووير بي سوماليdu yiraahdaan macna طيب marka wuxuu ilaahay ugu dhaaranayaa waa aayad cajab badano waxa muuqato meesha ka muuqda habeenkii oo soo qaabilay mugdigiisi
iyo maalintii oo daba jeedisay oo sii socota waatiyaynu soo marnay inuu ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala habeenkii oo soo qaabilay habeenkii oo daba jeediyay iyo subaxdii soo qaabashay wallayli idaa cascas والصبح إذا تنفس وانصومرنا هذا واتي كلوا ما ننتي وصي صعدتو بحضي إيوه هبينكي وصو صعدة استمر إيوه إسبدلي كدود كاسي مركا ما ننتي وصي تجيسة كم مقدوي معنا شفق هبينكو مركو كل مية والليل هبينكي وما وثق وحو كل مية مخلوقاتك يعني وحويان هوستي سال قليا سيدي مرأو كلا اللي هو نيا مركا وحي رنبو كل مية أو أرورنا يا طيب والقمر إذا اتسق وضيح مركو لما يسترمو اتساق وحويان بمعنى اجتمع واستوى مركو إكادو أو لما يسترمو لأنه وحوي انت هرو دنضيحو افتين كيس وايريه مركو أفري توشاني تومان قاعدو مركا لما يسترميها افتين كيس هذا نوحي شاني تومان كي يكدن بيه دبو أنو قونيا افتين كيس هذا نوى سيرانيا مركا ولما يسترمو وإلهي قدرنا تبارك وتعالى مقسم عليكم حويه هداد بني آدم كيتين لتركبن طبقا عن طبق وحتفولي دونتان حالة كلا الدنبية هدي لقد قال لتركبن بني آدم كي إنسان كي هدي لقد قواه سيدا أنا وتفسير علماء بدني أي قبان أما النبي صلى الله عليه وسلم بلغها الله لتركبن يعني وحوي النبي محمد واتفوليو حالة كلا قديسان بعد مريسا يعني وحوي تعوديسي يمراحي شيء مرتي يماله يدبكي دولة نمدي يأودي وهكذا haddii bini aadamka laga dhigana in xal dhahay la tarkabuna ibni aadamkiyo waxaad fuulaysaan oo maraysaan tabaqan aan tabaqin xaalad kale ka dambaysa ibni aadamka laga bilaabo marka la abuurayo waa dhibic mani ah xaalad kale uu maraya waa xinjir waxaan dhihi lahaa hawa xinjir cad hilib uu noqonayaa cadkii hilibkaaba haddana waxa la saarayaa muxuu ahaayay lafihii baa la bixinayaa ابن آدم جنين هو أورشيف ودما يسترم بنقونيا نفتا لجلينا وحالات كله يسقوا إلما يرو صوب حياة هذانا وكريا وقان جاريا هذانا قد مذوب بنقونيا هذانا أضيب بنقونيا قبر بوجليا ومرحلة وكسي جود بيا وحوتجيا محو قيامة دي بوتجيا وكسي جود بيا إلى وشنقلوا أما النار قالوا مراحل كلا جديسان يا حالات كلا جديسان بوسيدا أمريا معناه بني آدمك طيب مر هذا أرنتو ساعة وعدها مركا ما حي الرومين لايهن ما حي ليهن ما حاكو دعي فما لهم لا يؤمنون ما حي ليهن وين الرومينين ما حاكور تاجن أرنتو إسكعد هاي إني مركا الروميان ويلان ما حوديدن مركي قرآن كلجو آخريان ما حي السجود لايهن سجودني بمعنى وحوي ما حي كان لايهن أي علماء بعضهم كفسرين عامة العلماء سيد الشيخ ابن تيمية ليه بمعنى وحويان لأن يعني وحوي السجود مركز قرآن كأردن مركز لجو آخر السجود ما كان لكن ما لها قار كتب السجود كانت وحاسس سجن النبي صلى الله عليه وسلم انتو آخرية سورة صلاة عشاء انتو كو آخرية هل كان مركو مريا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون هل كان مركو آخرية النبي إنه السجود يبقى سجن صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري كسوانت طيب بل الذين كفروا بل اسكدا الذين كفروا يكذبون ويبينون يعني إني تكذان ويرميان way aayaadka wax ku qaataan iska badaay way beeninayaan way diidayaan allana wuxuu og yahay waxay qulubta ku qarsanayaan oo u qarsoon ilaahay waa ogsoon yahay waana ka xisaabin doona ugu bishaarey cadaab xanuun badan laakiin kuwaasi waxa yani wax way iyagu dhanka kale marka la fiiriyo waa mathaanida quraanka waa almathani quraanku yani dhinacana waxbu ka tusi dhanka kalena wax yani wax way macna kale ka soo horjeeda mu'minkii أيو دنكن كتوسي دنكن نوح كتوسي قالك يا منافقي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن دتك إيمانك عملك الصالح لجاه لي وإنتي الرميان هدنا إلهي أطيعي والشرع كل رقمي كواس يجو أشر بيليهن أن جو أينين أن لجوينين أشر شوكتا ومحيلم التعميد إلهي يدوكله عطاء غير مجذوذ واسمه أن لجوينين لنا نسقين مايو لنا جوين مايو شوكتوي نعمة سيلهن يو هل كاسة مركا سورة الانشقاق أي إنه صار ماتي سورة البروج وهي تينو حكتا أيضنا وحيكها ليس حرمها أي سورة ذا هوركها لين وحيسجوني أطابن ساقي عجيبه ضد مؤمنين ويقال عذابين
oo ciqaabeen oo si adag ay u ciqaabeen iimaankooda iyo caqiidadooda darteedna loo ciqaabay kuwaasay si gooniya uga hadlaysaa alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala wassamaa'i samadii baan ku dhaartay daatil buruuji burjiyada u saaxiibka ahay walyowmi maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi ee la yaboohay washaahidin ku xaadiraan ku dhaartay ku jooga wamashhuudin iyo ku la xaadiray mid jooga iyo mid la joogaan yaan ku dhaartay intaasaan ku dhaartay qutila waa la lacnaday asxaabul ukhduudi jeexjeeximadii ama jeexjeexyaalkii kuwii u saaxiibka ahaa kuwaasaa la lacnaday assamaa'i daati alburuuj allah tabaaraka wa tacaala dhowr shay oo makhluuqaadkiisa ka mida ayuu ku dhaaranayaa suuradda bilowgeeda shayga dhaarta keenayna waxa weeyaan qoladaa aan sheegnay oo mu'miniinta cadaabo iimaankoodii caqiidadooda darteed ku cadaabay ayaa lacnad ku dhacday ayuu ilaahay ku dhaaranaya tabaaraka wa tacaala marka shayga koobaad ee alla ku dhaartay waa samada daati alburuuj buruujtaasi laba macnoba waa la yidhaahdaa waa manaasisha qoraxda iyo dayaxu waxay leeyihiin meelo boosas ah oo ay maraan oo qoraxduna mudday ku goysaa dayaxuna mudduu ku gooyaa yani waxa weeye waa manaasil meelo ilaahay ugu talagalay oo ay baryaan markay socdaan oo wareegayaan ayib wareegoodaas ay maraan buruuj baa marka la yidhaahdaa taa waa macno ibnu jariir baa rajaxaya waxaa kaleeto iyadana buruujta la dhihi karaa waa xidigaha waaweyn annujuumu alcidaam xidigaha waaweyn ee samada ayaa waxaa la yidhahdaa alburuuj lanna burjiga yani waxaa loo isticmaalaa sarta dheer marka xidigaha waaweyn ee samadana waa la yidhaahdaa waa tafsiir midaad tidhaahdaba samadaa u saaxiibka ah ama xidigaha waaweyn u saaxiibka ah ama boosaska qoraxda iyo dayaxu ay maraan u saaxiibka ah ee ay degaan taasaan ku dhaartay walyowmi almawcuudi washaahidin wamashhuudin labadaasi tafsiirka maxaa laga wadaa maalinta la yaboohay maxaa laga wadaa kan xaadirka iyo kan la xaadiraysa maxaa laga wadaa tafaasiir kala gedisan bay mufasiriintu mareen waxaase u fiican midka nebigu ku fasiray sal alla alay wasalam bal huwa almutacayin maadaama nebigu fasiray meel kale la aadi maayo tafsiir kale la milicsan maayo macnaha nebigu wuxuu ku fasiray sal alla alay wasalam xadiidka abu hurayra rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam alyowmu almawcuud yowmu alqiyaama walyowmu almashhuud yowmu carafa washaahidu yowma aljumuca nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam alyowmu almawcuud maalinka la yaboohay waa maalinta qiyaamada saas daraaddeed waxaan leenahay walyowmi almawcuudi lanna addoommada ayaa la siiyey yaboohaas ballanqaadkaas in ay jirto maalin soo socota oo qiyaamo la yidhaahdo oo abaalkooda ay heli doonaan maalinkaa laysu yaboohay marka waa maalinka qiyaamada walyowmu almashhuud buu nebigu sal lla alay wasalam mashhuudka waxaa la yidhaahdaa waa yowmu carafa maalinta carafa iyadana waa yowm mashhuudo khalaa'iq aada u fara badan baa banka qiyaamada shaahidoo imaanaya malaa'ig ilaahay baa imaanaya allah samada soko u soo degaya mashhuudkuna waa yowmu carafa ayib shaahidkuna wuxuu nebigu ku fasiray waa maalinta jumcada washaahidu yowma aljumca waana maalmaha asbuuca maalinta ugu fadli badan waaye maalinta ugu qiimo badan weeyaan sidaasuu marka nebigu ku fasiray sal alla alay wasalam tafsiirka nebiga ayaynu marka maraynaa xadiiska tirmidi iyo axmed yaa soo saaray waana xadiis saxiixa wey wasamaa'i samadii baan ku dhaartay daatilburuuji burjiyada u saaxiibka ahayd walyowmi iyo maalinkii baan ku dhaartay almawcuudi la yaboohay ee addoommada loo yaboohay waa maalinka qiyaamada washaahidiin baan ku dhaartay ku xaadir ah oo maalinta jumcada ah wamashhuudin iyo mid la xaadiray oo maalinta carafada ah sidaa iska dheh siyaabo kaleetana waa la yidhaahdaa intaasaan ku dhaartay qutila waxaa la lacnaday asxaabu lukhduud halkani waxay ahayd dad gaalo ah oo dad awood lahaa dowlad ahaa ama awood lahaa ayaa dad mu'miniin ah intay soo qabteen oo ay godad dheerdheer u jeexeen oo ay dab ku shideen ayay dadkii mu'miniinta ah soo ururiyeen markaasay dabkii ku gureen
waxay u gubayaan ay u cadaabayaanna wax kale ma ahee ilaahay baan rumaynay keligii baan rumaysannahay iyo ma ahee yacni waxa weeye waxaan aan rumaysannahay iyo caqiidadanadan khaldan nala soo gala taasaa loo cadaabaya maxaad ilaahay keligii u rumaysan maxaad keligii yacni wax way u caabudaysaan taasaa macnaha cadaabka iyo dhibkaa loo mariyay dadka mu'miniinta marka allah wuxuu yidhi intaasaan ku dhaartay qutila waa la lacnaday asxaabul ukhduudi jeexdimaha kuwii u saaxiibka ahaa waa jeexdimihii dhulkii ay jeexjeexeen iyo godadkii ay dabka ku shideen waa asxaabul ukhduudi jeexdimaha asxaabteedii baa la lacnaday annaari naarta asxaabteedii baa la lacnaday dabka asxaabtiisii naartii daatil waquudi yacni waxa weeye huritaanka u saaxiibka ahay ama yacni alwuquud hadday noqoto waa hurid laakiin alwaquud haddii la dhaho oo wowda la kordhigo waxay noqonaysaa bimacnaa wax lagu huriyo u saaxiibka ahay bifatxi alwaaw haddii saawe aayaddu alwaquud waa wax lagu huriyo naartii dabkii u saaxiibka ah wax lagu huriyo oo wixii uu ku shidmi lahaayee dabku ku shidmi lahaay oo dhan bay usoo diyaareen hadday qoryo tahay hadday wax kasta tahay naartii u saaxiibka ahayd wey macnaha id waqti baa la lacnaday hum iyagu calayhaa naarta korkeeda qucuudun kuwo fadhiya ay ahaayeen markay mu'miniintii soo shiriyeen oo isu keeneen oo soo ururiyeen dabkiina ay shideen oo ku gurayeen intay soo fadhiisteen bay daawanayaan kuraas iyo waxbay ku fadhiyaan halkaasay daawanayaan sida ay muxuu ahay mu'miniinta silaca iyo cadaabka iyo dhibka ay marinayaan iyo cuquubadaasayba waaba muxuu ahay waaba damaashaadaya id waqti baa la lacnaday hum iyagu calayha naarta korkeeda qucuud calayha يعني وحوي كركيدا قعودن كوا فدhiya ay ahaayeen وهم ayagu على ما شيء كركي يفعلون أي سمينيان بالمؤمنين مؤمنين أي كو سمينيان شهود مرقيال بكيه مرخاتيه كيه أما قوب تشوك بكيه way fadhiyaan waxay muuminiinta ku sameeyaan markhaati iyo goob joog bay ka yihiin ila waxa kala duwan dambiga intaad sameeyso inaad ka xishootood ka dhuumato iyo waxa kala duwan intay sariigtu ka tagto xishoodka dambigii iyo mujaaharadii adoo dambigii galay haddana inaad banaanka soo dhigatood yaani qosol iyo maad iyo kaba dhigato macna dibka ay muuminiinta u geysanayaan bay haddana intay yimaadeen oo muxuu ahay kuraasi soo fadhiisteen bay daawanayaan wama naqamu ma ina qoonsanin minhum mu'miniinta xaqooda maynan kahanin oo maynan muxuu ahay illa an yu'minu inay rumeeyeen mooye billahi alla inay rumeeyeen allahi al-azizi ghalibka ahay adoomadiisa ka adka alhamidi ila mahadiyay sifatul kamalka iska lahaye si walba u mahadsana allah tabaaraka wa taala inay rumeeyeen mooye wax kale lagu ma qoonsanin maxay dambi galeen waxa lagu qoonsaday maxay ku kahdeen maxay ku dhibsadeen maxay ku muteen cuquubada iyada ilaahay bay rumeeyeen oo ma dambi la isku ciqaaba maya laakiin wax kale looma hayo wixii saxsana oo allah inay rumeeyeen ayaa dambi looga dhigay taa baa loo ciqaabay way wama naqamu gaaladaasi mayna qoonsanin oo mayna kahanin minhum mu'miniinta xaqooda إلا أن يؤمنوا إن الرميان مويه بالله العزيز الغالب كها بمعنى الله هاسي أي أدومدي ساء قليان والله عزيز كأ وآن ليسكو تاقي كرين وعدو مغان قليو آن يعني لدمع كرين وأدومدي سيدو دون كي يلي كرو كعدقوي الله هاوي الله أدومدي ساء قليان مؤمنين الحميدي إلا مهدين يو والله مهدم مضنواه يعني لانه وحي لا اسكو مهديو النعمان اسغا بخيي وناغو دن اسغا كوسيفيس ربي تبارك وتعالى marka waa حميد الذي الله سو له اسغا كليغي ay u sugnaatay mulku samaawaati samaawaadka boqortooyadooda wal ardi iyo dhulka boqortooyadiisa dhulka iyo samaawaadka ba Allah iskale boqortooyadooda isaga leh isaga maamula وهو اللي على كل شيء شيء كasta korkiisana shahiidun markhaatibu kaya waa ku ka markhaati ah wax kasto oo dhacayna waa la socdaa allaha samaawaadka iyo dhulalka leh haddana waxay sameynayaan la socdo oo og allahaasay mu'miniintani rumeeyeen isaga inay rumeeyeen baana dambi looga dhigay
marka ma dambi baa wahay allah tabaaraka wa tacaala dhulkii samaawaadka iskale ee awooddaas leh ee daqiiqad wax kaga qaban kara ilbiriqsi iyagoo dhanba ku halaagi karaya allahaasay adoomadiisa saa u galayaan way macnaha kuwaasi marka waxa weeye lacnadii ha ku dhacdo waa kuwa naxariista ilaahay laga fogeeyey cadaabna waa u waajibay meel xun bay ku dambeeyeen way macnaha dadkii mu'miniinta ah ay saa u galeen xaggay jiraan iyagu inna alladhiina kuwa fatanuu iyagii baa weli la daba socdaa way kuwii dhibka geystay gaalada ahaa baa weli la daba socdaa inna alladhiina kuwa fatanuu cadaabay almu'miniina mu'miniinta cadaabay والمؤمنين رجع مؤمنين تاه والمؤمنات يضمرك رجع يضمر بيسوق جيرين ضد كمؤمنين تاه العذابي أي عقابين رجع يضمر بيسوق جيرين إن الذين كوا فتنوا عذابي المؤمنين مؤمنين ترجع والمؤمنات كوا ضمرك ثم مركا كدبنا لم يتوبوا أن كسر نقن خلت كي جلين إنتي النولايين ونفط كجرت أن دبيك كسر نقن فلهم وحاء ذي كوا عذاب جهنم عذاب كذا إليه ولهم وحاء نادي عذاب الحريق يعني عذابك وحجبه ما دام أيدتك جبين أيجنا أبال كود وإن لجبه جهنم إن لجود هذه يكون جبتان أبال كود كاوي إن الذين كوا آمنوا رميدتك ديبك اللوجيست المؤمنين تهدبك اللوجو جري أيجوا كوا حال كود مرك إن الذين كوا آمنوا رمي أو عملوا سمي الصالحات عمليالك وناسا حقي بالرميين كدبنا ويكون رقمين لهم وحائق أسقنا ذي جنات السندوين أو تجري أي سعته من تحتها هوست الأنهار وبياشي أي قلقليان ذلك كاسانا الفوز الليبانتية الكبير أي وينيت أيقو أدون كان ويبكر يستنبا ولا عذابي ولا قبي تبع لقود هذه ويدنتين ويدافين ويكرستين إلهي وحقوق بدلي السندوين ووين وبياشو قلقليان برواقضا سيهلين إلهي با تبارك وتعالى الليبان تاسي مركا أدوينك يدبكيسي ويبكنا ستيم ومين الدرسانين سيدا سالليه داد كان مركا سيدا الله قلي يكون سيدا أو قلي يعني وحويان يعني معدا ييهين لكن علماء قاربا وحي كفصيران إني قولدن ييهين قوليو النبي صلى الله عليه وسلم وكشيغي حديث مسلم يا أحمد يسوع صار من حديث صهيب ورسولك صلى الله عليه وسلم قصة وكور رمي قصة سي قاركود يا آياتني يسكو فسرنا واحد هذين ضد كان مؤمنين تسيدا وقلي وقوى والنبي حديث كجشيكي صلى الله عليه وسلم حديث كان مرك الله سوق وبقصة دي سوحي أهيد ني واحد شري بقرة وحولهان شري مركا نين ساحرة يعني أو وحو السحرة ninkii baa duqoobay saaxirka ahaa kadib boqorkii baa wuxuu ku yiri war aniga waad aragtay waan duqoobay waxa sameeyay wiil dhalinyaro fahmo badan oo aqli badan ii keen cilmigan saaxirka aan baro booskayga soo kuugu galo wiil yar buu keenay ninkii boqorka ahaa wiilkii yaraaba marka ninka saaxirka aadi jiray oo wax ka soo baran jiray jidkii uu hayay ee uu sii soo socday ayuu maalmaha kamid wuxuu kula kulmay wadaad iska duurgal ah oo meel isaga cibaadeysanay ayuu sii maray wuu ku leexday marka wadaadkii buu wuxuu sheegay dhageystay wadaadku waa wadaad ilaahay ku xidhan ilaa kaliya rumaysan wadaadkii warkiisii buu ka helay wiilkii kadib wuxuu sameeyaa wiilku markuu subaxdii darsiga u sii socdo wuu sii maraa wuu la sii fadhiistaa darsi buu ka qaataa wadaadkan oo duurgalka oo raahibka saaxirkii buu u tagaayo darsigu ka soo qaataa markuu ka yimaadana wuu soo maraa oo xaafadda u sii socdo wuu daahi marka darsigii saaxirku ka daahaya saaxirka marka garaaca wuxuu ku yiraahdaa xagee ku daahday wadaadkii buu u sheegtay wuxuu warniyo waa lay garaaca maxaan sameeyaa wuxuu yiri waxaad sameeysaa markaad saaxirka u tagto waxaad ku tiraahdaa gurigii baan ku soo daahayo yaani gurigii bay hawliyo wax ka jireen oo xaqan ku soo yara daahay sidaas ku soco sidii ugu socday ayuu maalmaha kamid wuxuu ku soo baxay jidkii uu hayay xayawaan aad u weyn oo jidka fadhiya oo dadkii jidkii ay mari la yihiin oo tuban yihiin oo ka baqayaan wiilkii yara dhagax yar buqaat wuxuu yiri ilaahu maanta ayaan kala ogaan ma wadaadkaas wuxuu haysto ayaad adigu jeceshahay oo wanaagsan mise saaxirkan wixii saxsan oo jeceshahay maantan kala ogaanay dhagaxii buu qaatay
markaasuu yidhi ilaahu haddii arrinka wadaadka suufiga ah ee duurgalka arrinkiisu hadduu fiican yahay ilaahu daabadan ku dil dhagaxii buu tuuray daabadii meeshay ka baxday dadkii jidkay mareen arrin weyn bay noqotay marka wiilkii yaraa wadaadkii buu u yimid arrintii buu u sheegay wuxuu yidhi adeer maanta adigaaba iga khatarsane laakiin waa lagu imtixaani doonaa waa lagu ciqaabi waa lagu cadaabi doonaaye waxaad samaysaa markii lagu helo hay soo tusin cidna hay tusin hay sheegin waayahay wuu ka tegey wiilkii yaraa cajab buu noqdayoo wuxuu noqday nin daaweeya cudurrada khatarta ah dadka indhala-aanta ku dhasha dadka baraska qaba cudurrada laga quustay oo dhan inuu daaweeye noqotay nin marka waxaa jiray boqorka dadka la fadhiista ee golihiisa fadhiistee la taliyaashiisa ka mid ah oo la shaqayn jiro indhabeelay baa jira ninkii boqorka ahaa ninkii indhabeelay ayaa wuxuu ka war helay waxaa jira wiil yaroo dhallinyaro ah oo dadka indhabeelay daaweeya wuu soo tagay ninkii hadiyad fara badan dhaqaal xoolo badan buu keenay wiilkii buu u yimid wuxuu yidhi xoolaha meesha yaallo dhan adaa iska leh haddaad indhahayga ii soo celiso wuxuu ku yidhi war anugu indhama soo celiyee ilaahay baa indhaha bixiyee haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryo waan kuu ducayn kadibna ilaahay baa indhaha kuu soo celinahay waayahay waa islaamayaa waay haddaaban indhahayga celayo haddaan indhahayga helayo waa rumaynaya waa rumeeyey maalintii dambe isagoo indhihiisii qabo wax arkahaya ayuu boqorkii la soo fadhiistay boqorkii waa yaabay wuxuu yidhi war indhaha yaa kuu soo celiyey rabbigay baa ii soo celiyey ma anigaad iga wadaa buu yidhi ila boqorkan isagaaba rabbi soo haystaba maya wuxuu yidhi adiga iyo anigaba allah baa rabbi noo ah yaa xageed waxa ka keentay kadib ha la qabtuu yidhi waa la qabtay waa la ciqaabay xageed ka keentay baa wax ila boqorkan isagaa dadkan uu haystaba isagaa ilaahba uu aba isagaaba rabbi uu aba rabbi kalaba ma rumaysan waa la soo qabtay waxa la yidhi xageed ka keentay markii la ciqaabay oo la dhibay buu wiilkii yaraa wiilkan uu yidhi wiilkii baa la soo qabtay wiilkii baa la ciqaabay waxa la yidhi xageed ka keentay wax markuu adkaysan waayey wadaadkii suufigaa buu yidhi kan ruwaayibkii juur ku jira kanaa i baray wax wadaadkii baa la soo qabtay isaga lagama hadlinine halkaas madaxa dhexdiisa inta laga saaray miinshaar baa isaga dhan laba qaybood loo kala gooyey kii la taliyaha boqorka ahaana isagana inta la soo qaabtaa la yidhi halka inta laga saaraa isagana laba loo kala gooyey wiilkii baa soo hadhay wiilka marka rajaa laga qabaa cilmigii sixirka ee boqorka u baahnaa isagaa xambaarsan in durba laga takhaluso markaba lama rabo laakiin in loo caga jugleeyo oo uu waxan ka soo noqdaa la rabaa shaqadana hayo wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu u dhiibay ciidan buu u dhiibay wuxuu yidhi qaada oo kaxeeya buur saara buurta heblo korkeeda markaad saarantihiin waxaad tidhaahdaa war ka noqo hadduu ka noqdo ii soo celiya hadduu ka noqon waayana buurta ka tuura buurta korkeedii markuu saaran yahay oy meeshii saareen ayuu wuxuu yidhi allaahuma kfiniihim bimaa shi'ta ilaah waxaa doontay igaga kaafi buurtii baa gilgilatay iyagii baa ka daatay isagaa ku soo hadhay markay daateen buu muusan cararine intuu soo noqday buu isagoo socdo boqorkii u soo galay war aaway dadkan kuu sii dhiibay ilaahay baa iga kaafiyey buuri haddana qolo kale u dhiibay wuxuu yidhi doontan qaata badda dhexdeeda la mara markaad badweynta dhexdeeda joogtaan war ka noqo dhah hadduu ka noqon waayo tuura badweynta dhexdeeda ku tuura way kaxeeyeen meeshii bay geeyeen badda dhexdeeda markay joogaan badweynta ayay dhaheen war ka laabo ma laabanayuu yidhi inay qabtaan bay isku dayeen tuuraanoo ilaahu iga kaafi buuri ayagii baa doontii ka daatay doontii buu la soo noqday haddana ma fakaninoo ma cararine boqorkii isagoo socda u soo galay war aaway dadkan kuu soo dhiibay ilaahay baa iga kaafiyey buuri boqorku marka muxuu samaynaa wuxuu ku yidhi war dhagayso boqorow haddaad rabto inaad idisho ima dili kartid buu yidhi aniga waxaan samee ku dhaho inaad samayso mooye maxaan sameeyaa si in kuu dilaa waayo waxaad samaysaa leeb soo qaada leebabkayga ka mida qaansadii leebka isa saar dadkana soo shiri magaalada dhan isu keen meel bannaan oo dad dhan wada joogaan leebkii qaansada intaad isa saarto waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam wiilkan rabbigii abuurtay magaciisaan ku ganayaa dheh kadibna intaad i daldasho ood i xidhxidho leebka igu gan saan baad igu dili kartaa dadkoo dhanna isu keen boqorkii sidii buu yaalay dadkii buu soo shiriyey
wiilkii baa la daldalay oo meel lagu xidhay dadkii oo dhan wada daawanaya leebkii iyo qaansadii buu isoo saaray bismillaahi rabbil ghulaam wiilkan yarkaa rabbigii magaciisaan ku ganaya halkaasay kaga dhacday wiilkii leebkii wiilkii waa dhintay dadkii meesha joogay kulligood waxay yidhaahdeen aamanaa birabbil ghulaam wiilkaa yarka rabbigii baan wada rumaynay boqorkii marka balaayaa u soo hoyatay wuxuu ka yaabayay baa dhacay dadkii rumeeye wuxuu sameynaa marka ciidamadiisii buu diro wuxuu yidhi intaad godad waaweyn qodaan oo jidadka dhinacyahooda ah dadka saf soo geliya ruux walba or ka noqona hadduu ku noqon waayo dabka ku tuura dadku dad ahlul iimaan oo ilaahay iimaan ku sugay bay ahaayeene dabkii bay isku daateen way galeen ilaa markii ugu dambeysay islaan ilmo yar xambaarsan baa soo istaagtay way baqday markay dabkii soo istaagtay korkiisa naftaa siin weyday markaasay istaagtay ilmihii dhabarkeeda ay ku wada Allah hadla wuxuu ku hooyay ha baqin xaq baad ku sugan tahay ha baqin dabkii bay isku tuurtay marka culimada qaar ba waxay leeyihiin xadiiskaasi nabigu saa uga waramay ayay aayadan ama suuradan dadkay ka waramayso iyo muuminiinta dabka lagu guray waa qolada culimada qaar baa dhahay laakiin xadiiska nabigu sallallahu alayhi wasallam si madax banaan buu nabigu u sheegay qisadan suurada ku timidna si madax banaan laakiin way noqon kartaa in iyaga laga wado kadib Allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala inna batsha rabbika rabbiga qabashadiisu markuu adoomada qabanayo la shadiidun waa mid adag ilaahay adoomada waa u kaadiya la yumli lidhalim laakiin markuu qabto kama fakado innahu isagu huwa isagu yubdi isaga wax bilaaba makhluuqaadka isaga bilaabo abuura marka hore wayuciidu isagaana wax soo celiya isagaana dib u soo celiyo dib u soo nooleeya wa huwa isagu al-ghafuur waa midka dhaafida badan oo adoomadiisa khaladaadkooda iyo dunuubtooda u dhaafid badan al-waduud oo hadana adoomadiisa jecel sidaasi siday u badin culimadu waxay leeyeen al-waduud bimaana al-muhibb waa midka adoomadiisa jecel ama al-waduud waa midka la jecel yahay oo adoomadiisa iyo awliyadiisu jecel yihiin way macna tayib dul arshi way midka arshiga u saaxiibka ah al-majid way ka karaamada iyo sharaf kale Allah tabaaraka wa taala sharaf iyo karaamu leeyahay majidka macnaha kaasa la yiraahdo arshiguna waxa way waa makhluuqaadka ilaahay midka ugu sareeyo way todobada sama marka la dhaafo arshigu waa saanqaafka adduunka dhan ka koreeyo way allana arshigaas uu ka sii sareeyaa makhluuqaadkana waxa ugu weyn arshiga ugu weyn marka dul arshi way alla mid arshiga u saaxiibka arshi al-majid way marka la godo waa sifo ilaahay baa laga dhigaya marka Allah wa tabaaraka wa taala waa mid kariim ah oo deeq badan oo sharaf badan way facaalun way alla midka samayn badan lima shayga yuriidu oo doonayo wuxuu doonayana alla waa mid samayn badan bimaana makhluuqaadka kale ma makhluuqaadku waxay doonayaan wax kamida ma samayn karaan laakiin wax kasto uu doono alla wuu samayn tabaaraka wa taala laana kun umbuli ahaw sidaas unbuu ku ahaanaya facaalun waa mid samayn badan lima yuriidu waxa uu doonayo hal ataaka makuu yimid xadiithul junuudi ciidamada warkoodii makuu yimid fircauna fircaun warkiisii makuu yimid iyo wathamuud reer thamuud yani ummadihii hore warkooda ma haysa sheekadii ciidamada iyo isbahaysatada ma ku soo gaadhay fircaun warkiisii ma ku soo gaadhay reer thamuud ma ku soo gaadheen reer thamuud waa qoladii nabi saalax loo diray ma yani see loo galay waay bal iskaba dhaaf alladina kuwa kafaruu gaaloobay waa kuwa nabi maxamed la joogay sallallahu alayhi wasallam fi takdhiibin beenin dhexdeed bay ku sugan yihiin ayagoo ummadii hore wixii la mariyay og yihiin bay hadana beenin ku sugan yihiin ay xaq beeninayaan wallahu allana min waraa'ihim gadaashooda muhiitun mid koobay waay mid ka soo koobay xagga dambu ka koobay maxaa laga wadaa alle tabaaraka wa taala lagama fakan karo gadaashaadan ka koobay dhinacyaha dhan buu ka koobay saas daraadeed xeelad iyo xoog midna kagama fakan karaan saas laga wada wallahu min waraa'ihim muhiit bal iskaba dhaafe huwa isagu waa quraanka huwa isagu qur'aan way majidun oo sharaf leh sida ilaahay uu sharaf u leeyahay ayaa hadalkiisuna sharaf u leeyahay waa qur'aan kariimka majidun mid sharaf leh way fi lawhin lawh dhexdii buu ku sugan yahay mahfuudin oo la xifdiyay lawhul mahfuudka waa yani wax way waa diiwaanka ilaahay uu ku qoray wax walba quraanku halkaas uu ku qoray waxa laga xifdiyay lawxaasi wuxuu laga xifdiyay wax kasta in wax laga bedelo wax laga dhimo shayaadiintu gaadho wax ka ag dhawaan kara ma jiro lawhul mahfuudkaas uu quraanku ku yaala
asalkiisu halkaas weeye isagaasaa laga keenay malakul jibriil baa loo soo dhiibay nebi maxamed buu ku soo dejiyey 23 sano ayaa nebiga qayb loogu soo dejinayay laakiin qur-aanku wuxuu ku yaalaa halkaasuu ku yaalaa meesha sharafta badan ee dhowrsoon ayuu qur-aanku yaalaa waana qur-aan sidiisaba sharaf badan wax la beeniye maaha wax la diidana maaha waa wixii la barakaysan lahaa la qaadan lahaa hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam